السلام عليكم وأنا سلام أصحابتك كسر دوادا كنال كوغال كمان بورين فضل هذا كنال كعسبتا سبسكرايب سارو مقال كان لايك سار مقال كان وقيب سدحد برشة فيديو ديتك خاصة سوفت وير كبريمير برو مقال كنا ما تحق قادنينا قاب كلوس ما مقالة رياكشنسكا يولي بقاب كلوغ دارو مقال كبولر ugu horeen haddii aan ka bilowno sida loo sameeyo muuqaalada reactionska annaka hadda labada muuqaal ayaan ku sameeynaa soo dooro muuqaalka arabta ugu horeen kadib waxaa keentaa thumbnailka marka muuqaalka thumbnailka keento kii kale arabta inaad dhinac dhigtana asna soo qaad kadibna asna waxaa keentaa thumbnailka hadda soo jeedid labadii muuqaal thumbnailka ayay noo yaaliin balse kii hoose uu qarsama kan ayaa qarsama si aad usoo muujiso waxaa sameeydaa muuqaalka kore dooro markaas soo dooratid meesha effect control asigaas automatic isku geen doono meesha ay ku qoran tahay opacity ka dooro kadibna waxa ka doorataa shape kan had soo jeedid muuqaalkeen inta yarta ayaa laga dhigay marka si aad u sameeyid afartan gees adigoo qabanaya saan shaashada u leekaysiinta uga baahanta had soo jeedid labadii muuqaal waa kana waa is ag dhignay waa isor yaalin haddii kan oo dhinaca xigaan wax dhinaca u sikano balse xuduud ku dhaxay labada muuqaal oo muuqda si aad u qarido xuduudkaas haddaan tusaalahan soo weynayaan tuso bartaan way muuqataa si aad uga dhigto laba muuqaal isku dhex jira camal dooro muuqaalka kore kadib hoos u soo soco meesha ay ku qoran tahay mask feathering kordhi ilaa 100 marka 100 had soo jeedid sidii markii hore oo ahay ma aha haddii aad u baahnayna meeshan oo mask featheringka ayaa waxa ka dhigi kartaa eber soo jeedid hadda muuqaalka xuduud ku dhaxeeya oo muuqana hadda u baahantaana si uu muuqaalku qurxanaado waxa geyn kartaa 100 ama 575 inta u baahanta haddaan u soo gudubno sida muuqaalka lagu daro blur ugu horeen imaa effects kadibna waxa ku qortaa Gaussian blur soo jeedid waa kana blurka soo qaad kadibna waxa ku soo kordhida muuqaalka u baahantaa inaad blur ku darto kadib hoos ima meesha ay ku qoran tahay effect control had soo jeedid waa kana blurki haddaan inta ka kordhino muuqaalka dhan ayaa qarsama balse hadaa u baahan tahay inaad qayb kamid ah qarido waxa sameyn kartaa toolkan aad dooran kartaa kadib inta u baahan tahay calaamaday tusaale intaan oo kale sas markaa u calaamadayso hoos ayaa soo baxay sas markaa u calaamadayso meeshan oo eberta ayaa kordhinaysa ilaa inta u baahan tahay 75 oo kale macquul ah had soo jeedid ninka facekiisa uu qarsamay haddii aad u baahan tahay tusaalahan oo kale muuqaalka bilow ilaa dhamaad ninkaas wajigiisa ma muuqdo si aad inta rabto uga dhigto waqtigu xirto waxaad daartaa keyframe-kan daar markaad daarto inta u baahan tahay markuu kugu joogo kan taabo marka kan taabatid waxa raro soco kadibna kan ebertiis ku celi hadda tusaalahan hadda aan soo bilaabaan ku soo hadda soo jeedid ninka wajigiisa hadda blur waay haddana soo jeedid ninka wajigiisa blurka uu ka baxay qaabkaas ayaa u isticmaali kartaa blurka haddaan tusaalahan ku darno sida loo isticmaalo chroma key ama sida muuqaalka backgroundka cagaarka looga jaro ku soo laab project kadib meeshan double click si
kadibna waxaa soo doorataa muuqaalka u baahanta. haddana kan ayaan u baahannahay kadibna open leh kan muuqaalka meesha uga baahan tahay markaa keentid. hadda saa ujeedid muuqaalkan backgroundkiisa dambe waa cagaar zaa'idna wuu weyn yahay. waxaa sameeydaa kow asaga dooro kadibna scalekiisa yaray ilaa 50 ama inta adiga u baahan tahay. markaa scalekiisa yaraysid waxaa imaataa effects kadibna meesha effects waxaa ku qortaa effectiga magaciisa la yiraahdo alter key. hadda saa ujeedid waa kana effectigii soo jiid kadibna muuqaalka oo green screen kusoo kordhaa. markaa kusoo kordhayd hoos u soo bax meesha ay ku qoran tahay alter key imaw kadibna waxaa ka doorataa qalinkan kadibna waxaa taabataa muuqaalka meesha oo cagaarka yahay. hadda saa ujeedid waa laga jaray backgroundka cadaanka ah ee muuqaalkeena. haddaa u baahan tahay kan intaa waa ka yaray kartaa meesha u baahan tahana waa ka dhigi kartaa muuqaalka. markaa dhigto meesha uga baahan tahay muuqaalkan oo asaga green screenka asaga ayaa wuxuu wata cod oo weliba sareeya. hal mar dhageyso codkiisa. saa maqlaysaan codkan waa cod aad u sareeya. si aa u yarayso meesha oo codka muuqaalkan codkiisa meeshuu yaal dooro waa audio 3 markaa doorto kan hoos soo jiid. had saa ujeedid wuu weynaada muuqaalkii kadibna toolkan soo dooro kadibna waxaa sameeydaa bilowga daar kadib dhamaadkana daar. markaa meesha daartid meeshaan waxaad ka soo hoos soo sik warka isaga hoos soo sik. had saa ujeedid codkiisii hore iyo codkan isku mid maan. hadda waa la gaabiyey codkiisa. haddaa u baahan tahana asidhan ayaa codka ka xiri kartaa oo weliba waxaa saari kartaa mood. haddaa moodkaa saartod ma maqli doontid codkiisa dhan. muuqaalkeeni maantaasi uu ku egyahay. waa ku mahadsantahay daawashada daawata muuqaalkan. mac salaamo.